الله وبركاته أصحابتي والسلام إحنا كنا علميين برشة AI automation كي يعني chat bots كنا مركز أصحابتي سي تليجرام chat bot إن شاء الله إذا AI أنا وصوّد الإسناي سيدي مدو جوابي دت كمل لها الله يس جروب كاقول على لكن إحنا دون هذا أنا بلونه يسترنا AI bot chat bot وحلا هذا مهم وخطر سين يعني هل من chat bot كاقول سكسر وحلا هذا مونيكا مونيكا دوني عاوي إنا إدبر هذا مونيكا هذا سؤال كستود ويديس هاي هذا كنت هذا يعني اسكو ويديسو way ku jawaabaysaa because waxa weeyaan waxa weeyaan waa bot marka waxaan sameeynaa saaxiib halka waxa ku jira liisas adigu waxyaabo fara badan hore u qoray laakiin muhiimadeena waxa weeyaan explore halka ay ku qoran tahay markaasaan inaga halkaas aan ula jeednaa asxaabta explore marka waxaan ka wadnaa explore asxaabta yani waxaad ka helaysaa yani adeegyada u baahan tahay halkaas aan ku dhufanaya marka explore baan tagay inaan chat bot sameeyo waxaan tusay asxaabta inaan waxna adkeen waliba adiga custom chat bot adiga ka hadla naftaada iyo waxa dhigayso marka xaga taga asxaabta xaga maxaa ku aragtaa halka chat bot ku aragtaa waxaan kala liiska chat botka ee dhisan dad baadho iyo kuwa anigu aan dhisay fara badan baa itustinaa laakiin hadda intaan aan u gudubno sida loo dhiso marka labada xagaas aan ku dhufanay create chat bot baan leeyahay chat botku asxaabta iska galanaysan deegaanka mashigi wuxuu ka caawinayo sida hawlaha kugu fududeynayna adiga danahaaga waxaa leedahay dadka dad ku soo galaan waxa imika kan macallin baan ka dhigayaa waxaa leeyahay dadka waxa u dhigtaa koorsooyin caadiya oo anigu marka aan ku save gareynayo bodku marka aad sameynayso saaxiibayaalkan wuxuu u baahan yahay mataqaana wax badan waqti badan qaato ma baahnaba halkan wuxuu ka doonayaa inaad magacii geliso sababtoo magaca kaba soo qaadba caawiye ee hadda tiraado asxaabta ku san laakiin aniga waxa soo dhawaxay ila iisan qaab hadda cusub asxaabta waliba khatar qaabka social media ku xirnayso waxa kamid ah qaabka halkan ku yaala marka moniko marka qaabkan ku siiso hadda social media hadda aniga toos waxaan ugu xirayaa Instagram-kayga okay xaga marka ku dhufatay halkan ku keenaya asxaabta halkan ku keeno halkan kaliya waxaad ku qoraysaa ID-gaaga tusaale ahaan ID-gaaga hadda ID-gaaga ku qoro tusaale ID-gaaga saasoo ahaa samaha space ha u yeelin marka magacaaga wuxuu ahaa halkan ku qor haddii kale kuma samaysmayo markuu waa inuu doono ugu raadinaya asxaabta import buu ku leeyahay okay saaxiib yaal toos buu markaa ugu xirmay uu yar doonay markuu cabaayad doon wuxuu hadaba meelaha ugu muhiimka ah asxaabta aad doonayso inaad aad iyo aad carefully waa halkan waxa lagu qorayaa yani bodku wuxuu qaban karo inta badan ChatGPT talab knowledge pages ka soo sameeyay knowledge page waxa doonaysa inuu qabto waxa leedahay waxa ka hadal waxa dadka u gudbi waxa si aniga iyo hadal baa leedahay alashan ma fahanteen taas waxay keenaysaa marka caqabad marka halkan setting baa asxaabta setting iyada setting waa muhiim asxaabta halkan ku dhufto asxaabta halkan setting aan garanin baa igu qoran waxaan anigu ma garanayo meel laga keenay iska masaxaya marka setting-ka asxaabta halkan wax ka bedel oo waxa leedahay bodkani waxaas ka shaqeeyaa tusaale yar baan siinaya mid kale ogaada saaxiib halkan knowledge base aad ku qorayso yani aqoonta waxa uu gudbinayo halkan aad ida ka dhigaysaa waa bot setting waxa aad doonaysaa in bodka qabto halkan waxa jirta asxaabta description yani bodkan muxuu ka hadlaa tusaale ahaan dadku markay arkeen bodka wuxuu ka hadlaa waxa yani kani waa caawiye macallin hadda caawiye macallin baa halkaas soo gelinaya xagan kalena waxa soo gelinaya knowledge base aan soo samaystay xagan ku soo sameeyay knowledge base asxaabta waxaan ku soo samaystay Allahumma musta'an halkan aan ku soo samaystay oo aad iska garanaysaa qof lagu garanaya waxa weeyaan waa Google documentiga aad doonto meelka ku soo samaysan kartaa inta yar baa soo qaadaya inta yar muxuu baa ka hadlaa soo qaadaya xagan imanaya horda wuxuu ka hadlaa oranaya intaan halka kale u gelin yani description bodku dadku markay arkayaan yani wuxuu ka caawinayaa ardaydan u sheegaya yani wuxuu ka caawinayaa barashada cilmiga AI video edit iyo AI automation halkan blog waa la yiraahdaa halkan blog waxa kamid ah asxaabta yani wax laga wadaa waxa oo ku bilaabaysa tusaale ahaan cashirkii koowaad oo kala hadda ardayga u bilaabay cashirkii koowaad cashirkii labaad meelaha dhigay waa muhiim okay waxa soo kale ku bilaabay yani tusaale ahaan koorsada koowaad yani meelaha uu qofku taabanay marka ugu horeysa soo galo ama marka ugu horeysa muxuu arkayaa iyadana waa tustaan marka ugu horeysa waxa arkayo okay qofku marka ugu horeysa soo galo asxaabta halkan markaad marayso yani wuxuu arkayaa bodka chatka halkan uu ka bilaabay intan ugu qor waxa li xad doonto anigu qorayaa soo dhawo walaal maxaan ka caawiyaa maanta xagga xiisadaha iyo barashada AI-ga AI automation okay qofku intaas marka ugu horeysa arkaya soo baxo okay halkan skills fara badan baa ku jira halkan skills-kan ka wada waxba dooranayda disability ka because generation wuxuu ku yimaad laga yaabaa inuu lacag ku weydiiyo kharash badan ka qaad qaybta yani ku yaraato hadii wax badan la daabo waxaan ku wada sawirado calaashan sameeyaa
so marka halkan waxaad doonaysaa asxaabta modelka badka waa dooran karaysa anigu deepseek baan doortay haddaan doonto waxaa iska taylaa flash 2.5 kaasoo ka ugu khatarsan baan dooran karaa asxaabta ama waxaan dooran karaa Gemini so Gemini 2+5 isku free aan dooranaya so kaasa inta badan iiba halkiina so halkan hadda waxaa iga maqan asxaabta knowledge page waan soo qaadaa because knowledge page isku muhiim so knowledge page ku yar dheer yahay asxaabta waa inaad soo qaadataa marka knowledge page ka soo qaadanaya saaxiibayaal dhawaantii waa soo koobi galaysan waxaan leeyahay select all so inta yar ee ugu dambaysa iska reebaya oo ahayd intii aan tusay so knowledge page ka asxaabta hadda doonaysaan linkiga xagga hoose ay idin dhigi doonaa oo aad ka qaadan karta haddaa u baahantiin knowledge page ka loo sameeyay ida laftigeedu iska muhiim xagga hoose ay idin dhiga insha Allah asxaabta ka qaato so knowledge page ka waan asxaabta imi kabacdina waxaan leeyahay saas oo kale create wax kale hadda uma baahna wax walba uu leeyahay baalkaygu ugu xiran yahay laakiin su'aasha ugu horeysa waxay tahay intaan hadda create ku dhufan magacu waa maxay magacu waa Maxamed Yaasin okay macallin Maxamed Yaasin baa masii deynayaaba way okay macallin waxa doonta yani ya wax khasaba maaha magaca si ku qoran kartaa laakiin waxa muhiim ah magacu xoogay inuu yar gaabnaado ama iska day saaxiibay macna caawiya ma u bixiyay intaan ka u bixiyay asxaabta waxaan sameeynaa create baan taabanaya asxaabta create a bot so marka laakiin social media toos Instagram ugu xiran asxaabta oo diga soo helaysa isla markaba so okay asxaabta marka hadda bodkii saas ku sameeyay asxaabta okay saaxiibay ma create noqdo meesha back bas ka imanaysa so meesha blue noqoto waxba ha u joojin adu back iska soo bax marka kaale marka create ku dhuftay okay isaga oo reer uu publish karanay marka xaggana tagaysa saaxiibay halka ku qoranta my bots bas si tagaysa my bots marka si tagta marka halkan waxa kugu yaala waxa creator-ki saaxiibo ka marka halkan maxaa ku yaala macallin caawiye waa bodkii aan sameeyay so bodka ku sii dhufanaysa saaxiib waa ka soo dhow waxa ka caawinaya xagga xiisadaha iyo barashada AI automation intaas waa inta arkayso so asxaabta marka waxa cadda cashirkii koowaad ku dhufato cashirkii koowaad markaba cashirkii koowaad AI automation uu ku baariya jawaabtiisa sax u siinaya so qofkii ardayga hadduu doono wuxuu doono u qori karaa so okay saaxiib waa ka hayo ku salaamay soo dhawow ku qoraya walaal hadda cashirkii marka saaxiib waxyaabo badan baa halkan soo waxa oran sharaxaad soo okay linkiga cashirkii koowaad okay linkiska cashirkii hadana waxa qaldan linkiska cashirkii koowaad ii soo dir so okay asxaab badan baa marka asaas oo kala bad sameyn kara marka waxaad ka dhigi kartaa website-kaaga la widget ku dhigi karaysaa hadda doon toos dadka ula wadaagi karaysaa saaxiibada hadda macallin tahay hawlo badan oo qaban lahayd ku fududeynaya yani oo waqti kaaga bixi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiib okay saaxiib hadda uu soo dhigay haye waxaan ku fahminaa codsanaysa linkiga cashirkii koowaad ee tumisho waan ku faraxsanahay inaad xiiseynayso waxaan ku siinayaa 2 cashir oo hordhac oo maanta marka saaxiib waa labadii cashir ee hordhaca cashirkii koowaad cashirkii wixii dhan buu ku soo diraya meelihii laga xiriiriyay Telegram message hadda Telegram ku dhufato asxaabta halkan waxa ii soo baxay markiiba Telegram-kayga so waka asxaabta xagga hore ugu galeysa marka waka asxaabta salaamu calaykum soo sameeya waana idin salaamay ardayda waxa sheegay arday badan baa ka soo shaqeeya casharada marka kuwa restriction baan ku sameyn doonaa insha Allah inaan casharadan dambe access gareeyaan so bad buu soo sameynaya qof walba insha Allah groupka Telegram ku soo diraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh